بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة ولا لها قارئة خير كجعل لما أنت ولا لي السلام يا ملك السعالم كي جلس عطان إلهي سبحانه وتعالى يا مهدس كله مركز كان سعري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله دائما وابدا، الحمد لله، شكر لله. ما شاء الله ولا لها قالي سود هذا، ما شاء الله ولا لها قالي سود هذا ما توحيني ولا قصص استغفارتها. sidoo kale qisooyin xawqalad ayaa ku jira soo dhawaada walaalaha qariga ka faa'iideysta. qisadan walaalayaal gabar baa ka sheekaysay. gabadhan waxay tidhaahday walaal waxaan rabaa inaan kula wadaago qiso yar maalmo dhoweed igu dhacday bay tiri. waxa ay helay bay tiri xanuunka nafsiga ah, depressionka camal ah bay tiri. hurdadii ayaa la iiga qaaday bay tiri. kadib waxaan iska waayay bay tiri muddo dhan hurdo. salaada subax aadaankeeda ayaan ka warheli jiray bay tiri. saan usoo jeedo maskaxda fikir aan dhammaanayn baa ku jira. dadku ima fahmayaan bay tiri, waayo ma naqaano badan soomaalida inta badan xanuunkan ma fahano bay tiri. qof hadday dabeecadiisi isbedelaan waa laga wada aamusaa. waxaan ka baqay bay tiri inaan waasho, caadi u waasho. waxaa iga soo horbaxay bay tiri maalin video aad kaga hadlaysay bay tiri xawqalada. amarka ilaahay waxaa ku jiray hadalladaadii xawqaladu cudurrada nafsiga ah ee stresska daawo ayay ka tahay ayaa tiri. hadalkaaga ku jiray bay tiri. waan ku dhegay bay tiri xawqaladii maalinkii jimcaha ee lasoo dhaafay ayaan waxay tiri istikfaarta qabsaday. waxaan maana kala joojin waayey bay tiri. saacatul ijaabadii ayaan rabay bay tiri inaan ducaysto. waxaa noo da-ayay bay tiri roob, alxamdulilah. duco qalbiga kasoo go'day baan alle uu ku baryay bay tiri. wallaahi maalintii wixii ka dambeysay alxamdulilah xataa waan seexdaa, nolol fiican baan ku jiraa. runtii warwar aanan garanayn ayaa i hayay bay tiri, murug joogto ah, cabsi badan oo xataa dadka ka baqayo. xanuunkan ma ahan bay tiri markii koowaad uu i helo, horeyna wuu ii halay bay tiri anoo intaan ka yar. isla sidaas jirkayga xataa wuu saameeyey. wadnaha i xanuunay, madaxa, dhabarka, lugaha baa la iga qabtay tiri. hadda caadi baan ahay, maasha allah. xanuunkii jirka waa markuu warwarku igu bato bay tiri wuu jirkayga saameeyey. hadda waan caafimaad qabaa, alxamdulilah. walaale ilaahay nimcada markaan weynayno nimcada ilaahay markaan weyno ayaan dareenaa bay tiri. walaalaha qariga qisadan waa qiso aad u qiimo badan. waxaa ka dareemaynaa dadkeenu waa run cudurrada maaragtay nafsiga ah ee depressionka nafsiga ah ma dareemaan. marka wax yar baa kugu keeni kara maantii adoo intaa suuqa aaday ama wax intaa guriga shaqadii kugu badatay, waxaas bay maskaxda isdaba mari karaa. ma fahanteen sida jirka u xanuunsada walaaliya maskaxda u xanuunsataa. marka waxyaalahaas kale qofka markaa lagu arko, soomaalida waa run cudurka ma garanayaan. dhimirka bay dadkeena way ka aamusayaan sida gabadha noo sheegtay. marka qof haddaa cudurrada ku aragta caawiya walaali, si fudud baa loo caawin karaa. dikriga iyo qur'aanka ilaahayna waxaad ogaataa cudur kasta ama nafsi ha ahaado ama xanuun caadiya ha ahaado ama macnihii xanuun ruuxi ha ahaadee, ilaahay subxana wataala wuxuu yidhahda qur'aanka waxa u soo dejinay shifaa iyo raxmad iyo ilaahay subxaana watacaala inuu dadkiisa mu'miniinta ku daweeyo ayuu ilaahay subxana watacaala usoo dhis. marka qof kastoo xanuun kastoo ku haya, madaxa haddii laga hayo, malaria hadday ku hayso, infection hadduu kugu dhaco, oo intaas 2 ragcadood tukatid, suuratul faatixa saliga nabiga xawqalada u fariisatid, ilaahay subxana wataala wuu kaa dulqaadayaa. maxaa lagaa rabaa? biniya ayaa lagaa rabaa, yaqiin ayaa lagaa rabaa. ma fahanteen axbaabila? sida aad daawada dhakhtarku kuu soo qoray markuu ku dhaho daawada waa daawadii malaariyada inaad ku biskoonaysa u aaminaysid, qur'aanka ilaahayna u aamin. qur'aanka ilaahay baa 100% daawada qof bin aadan uu sameeyey. ilaahay subxana wataala baa garanaya, ilaahay fadligiisa inuu kugu caafiyo maahane maxaa sheeg ilaahay baa garanaya. laakiin qur'aanka ilaahay waa saxiix. ilaahay wuxuu yidhi waxa u soo dejiyey shifaa inay dadka mu'miniinta ilaahay ku caafiyo. marka maasha allah dikriga iyo quraanka iyo kulli waxay hoos tagayaan maxaa sheeg dikriga ilaahay subxaana wataala. marka hal la dadaalo walaalayaal, diintana maasha allah si fiican ha loo barto, si fiican ha loo niyeysto, si fiican ha la iskugu daweeyo.
qisadan walaaliya gabar baa ka sheekaysay gabadhan waxay tiri istikfaarta ayaan sameeyaa maalin walba 20,000 siiqada gaaban ayaan sameeyaa astakfirullah siiqadaas ayaan sameeyay bay tiri waa ku liibaanay bay tiri wax kasta waan ku helay oo ilaahay aan weydiiso waan ku helaa waxay tiri yaan la quusanin hala badsada bay tiraahday dikriga insha allah waad guulaysan doontaan ayay tiri gabadhan qisadan walaaliya gabar baa ka sheekaysay gabadhan waxay tiri waxaan jiraa bay tiri adoo gaaray 31 sano guurkii baan ka daahay bay tiri waxaan go-aan ku gaaray inaan istikfaarta badsado sidoo kale waxay tiri tasbiixda baaqiyaatu saalixaadka oo ah subxaana allah walxamdulilah walaa ilaha illa allah allahu akbar ayaan badin jiray bay tiri sidoo kale qiyaamu leylka ayaan soo kici jiray waa ducaysan jiray bay tiraahday suuratlbaqarana waan akhrisan jiray habeenkii waxay tiraahday qeybtiisa dambe 3 bil markaan waday bay tiri habeen walba qeybtiisa dambe ayaa soo kici jiray 3 bil markaan waday bay tiri waan guursaday ilaahay guur wanaagsan ayuu ii soo diray weliba waxay tiri wiil dhalinyaro ah oo aan weli soo guursan ayaan helay bay tiri aan guur hore soo marin sidoo kale shaqo ayaan helay bay tiri alxamdulilah sidoo kale awlaad ayuu ilaahay i siiyey bay tiri istikfaarta yaa la moogaan bay tiri gabadhan walaalayaal qisadan hooyo ayaa ka sheekaysay hooyadan waxay tiri aniga oo dikriga xawqalada akhrisanaya ayaa waxaa i arkay bay tiri wiil yar oo aan dhalay wuxuuna igu yiri hooyo maxaa akhrinaysaa waxaan ku yiri hooyo dikriga xawqalada ayaan akhrinayaa wuxuu igu yiri maxaa laga helaa hooyo lagu helaa hooyo wuxuu yiri waxaan ku yiri hooyo waxaa lagu helaa wax kaste ilaahay subxaana watacaala ugu dhawaanaysaa waxay tiraa sidoo kale ilaahay albaabada uu kugu furay ayaan ku yiri wiilka wuxuu yiri hooyo aniga waan samaynaya waan u baahanahay waxaan u samaynayaa buu dhahay iskuulka markaan soo daaho waa la ii dilaa marka dilka inaan ka badbaado ayaan u akhrisanayaa waxaan ku iri bay tiri waad ku heli doontaa ilaahay wuu kugu badbaadin doonaa wiilkii wuu bilaabay bay tiraahday subaxii dambe ayuu asagoo afka ku haya ayuu daahay bay tiri iskuulkii waxay tiraahday macallimiintii ayuu la kulmay waxay tiri xawqalada ayuu afka saaray albaabka markaan soo galay buu dhahay dad badan oo soo daahay ayaa la ciqaabayay buu yiri aniga marka macallin ayaa soo baxay wiil wuxuu ku yiri wiilka yarka imtixaan buu ka daahisan yahay la soo daayo sidii baa la igu daayay saas baanu ku badbaaday alxamdulilah marka ma uusan joojin bay tiraahday qisadan walaali waxaa ka baran karnaa ilmaha sidaas ayagana dikriga loo baraa si awoodda ilaahay subxaanahu watacaala ay u bartaan walaalayaal qisadan walaali iyadana gabar baa ka sheekaysay gabadha waxay tiri istikfaarta ayaan badiyaa bay tiri haddaan soconayay haddaan fadhiyay haddaan taaganahay waxay tiri istikfaarta aad ayaan waxay tiri afkayga mar walba waxay tiri istikfaarta ayaan joogteeyaa bay tiri kama qaaday tiri waxaan rabay bay tiri inaan shaqo helo niyadayda ayaa macnihii saas u niyeystay waxay tiri weli shaqo macnihii weliba shaqo iyo calaamadaysan oo aniga aan rabay baa jirtay bay tiri alxamdulillah ilaahay wuu igu siiyey bay tiri shaqadaan rabay haddana waan ka shaqeeyaa shaqadii alxamdulillah istikfaarta yaa la moogaan bay tiri yaa la joojin qisadan walaaliya gabar baa iyadana ka sheekaysay gabadhan waxay tiri waxaan soo maray bay tiri maalmo adag aan iska ooyi jiray bay tiri murug darteed saa murugta ugu jiray bay tiri oo aan noloshii ka quustay ayaa maqlay bay tiri istikfaarta fadligeeda alxamdulillah waan bilaabay bay tiri waqti saxarka weliba hal isbuuc kaliya markaan waday ilaahay wuu iga farxiyay bay tiri wax kaste waan ku helay bay tiri istikfaartii xilliga saxarka ayaa waxay tiri yaa la moogaan istikfaarta qisadan ayadana gabar baa ka sheekaysay walaaliya gabadha waxay tiri waxaan ahay bay tiri reerkayagu waxay ahaayeen reero faqiiriina bay tiraahday maantana waxaan ahay bay tiri reere taajiriin ah oo qani ah fadligan waxaan ku helnay bay tiri istikfaarta alxamdulillah dadku hadday ogaan lahaayeen bay tiri nimcada istikfaarta dadkoo dhan waxay tiri way u wada tartami lahaayeen dadkoo dhan way u dareeri lahaayeen bay tiri weliba xilliga waxay tiri saxarka istikfaarta haddaad badsato dadow waad ku liibaanaysaan bay tiri ee badsada istikfaartu waa nimco haddaad ogaan lahaydeen dadka oo dhan baa u dareeri lahaa bay tiri maasha allah ka faa'iideyso walaalaha qaaliga qisadan gabar baa ka sheekaysay gabadha waxay tiraahday murug iyo dhib iyo ciriiri adduun ayaan ku noolaa bay tiri waxaan ka cabanayay bay tiri sixir xasad gaajo duruuf xanuuno waxay tiraahday ruqya markaan dhegaysanaya bay tiri oo dhagaxa gashto qur'aanka waxay tiraahday waan ku xanuunsan jiray ma aanan awoodi jiray bay tiri qur'aanka dhagaysto waan ka xanuunsan jiray bay tiri waxaan bilaabay bay tiri istikfaarta oo ilaahay igu ilhaamiyey bay tiri alxamdulillah
waan waday bay tiri wax walba ilaahay ugu fududeeyey qur-aankiina akhriskiisii dhagaysigiisiina dhagay suuratulbaqara inaa akhriso alxamdulilah adkaarta waxay tiri waan bilaabay saliga nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan bilaabay bay tiri haday salaadii ayaan waqtigeedii ku ilaaliyey bay tiri alxamdulilah istikfaarta wax walbe waan ku helay bay tiri haddii ahaan lahay dikriyadii qur-aankii oo markaa igu adkaa ilaahayna wax walba iga dulqaaday bay tiri markaan istikfaartii badsaday oo qur-aankii aan dhagaysan karo oo suuratulbaqara akhrisan karo oo saliga nebiga akhrisan karo waxay tiri alxamdulilah sixirkii iyo xasadkii iyo diiqadii iyo duruuftii wixii dhan ilaahay wuu iga qaaday bay tiri qur-aankii iyo cibaadadiina ilaahay subxana wataala wuu ii fududeeyey bay tiri wax kaste ilaahay subxana wataala wuu igu fududeeyey bay tiri istikfaarta maanta nolol wanaagsan ayaan ku noolahay bay tiri walaalayaal ha laga faa'iidaystay tiri istikfaarta oo wax walba xataa cibaadadii ay ilaahay subxana wataala iigu fududeeyey maasha allah marka walaalayaal ka faa'iidaystaa ilaahay subxaana watacaalana ugu taga digrigiisa qiimaha badan ciyaar nagumay soo gaarin walaalayaal istikfaarta saliga nebiga xawqalada suuratulbaqara qur-aanka akhrintiisa maasha allah qiyaamu leylka ka faa'iidaysta walaalayaal muuqaanin insha allah cibaadooyinka qiimaha badan ilaahayna subxana watacala kugu jeclaanay ilaahay subxaana watacala xadiisa qus wuxuu ahaa adoonkaygu wuxuu ugu dhawaado ilaahay wuxuu jecel yahana waa fisha sunnada markii waajibaadka laga soo tago marka dikriyadan dhan sunnay kugu noqonayaan ilaahayna wuu ku jeclaanayaa ilaahay subxana wax walba wuu kuu fududaynayaa ilaahay subxaana watacaala wuu kugu naxariisanayaa maxaa ka qiimo badan walaalayaal maasha allah naftayda naftiina ku boorinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dikrigaan ka faa'iidaysano kuwa dikriga ku nool oo mar walba carabkooda dikriga ka qoyan yahay aan noqono walaalayaal ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuuna solonsiiyo asagaa solonsiinta iskale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.